كيف كانوا كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنتي ugu darneed ayay kooxda argagixisada Muqdisho hadda xilliga idin la hadlayo duleedkeeda ka sameeyeen dhawaaqa culus aad maqlaysay ayaan faahfaahin kaaga wadaa haddii haddaba aad hadda ku soo gaartay bilowgaad la kowsatay warbixintan waxaa maqasheen ilaa iyo 7 qarax ku dhawaad arinta yaab kale waxa waaye waxaan hoobiyaal loo maleynayay marka hore xogta hoobiyaal ma ahayn hilaaca ama iftiinka ay bixinayeen miinooyin ay ahaayeen 4 qofood ayaa ku dhaawacmay waxa ku jira wiil 15 sano jir ah iyo gabar yar dhaawacaas 4 qofood marka laga soo tago dhimasho wiil lama sheegin meeno soo boodo ah oo guriga geeskiisa lagu dhijiyay ayuu qarax koowaad ahaa sidoo kale guriyo mataana ah ayaa wada miineysan dad ayaa ku dhex jira wada miino waay dadkii ayaa la isku dayaa in la soo saaro waana adag tahay nimanka falkan ka sameeyay ama hawshan fulinayay ilaa hadda meel ay ka bixin lama haayo xaaladda marka xaalad adag waay jidadkii dhan ayaa la xiray goobta falkan uu ka dhacay waa halka la yiraahdo guryaha mataanaha ah ee waji ahaan ku aadan masaajidka afar minaaradaha waaxda koowaad ee galmudug ee garis baaley laamaha amniga iyo dadkii kaleeto ee meesha jooga ayaa wada shaqeyn ay dhaxmaraysa ay shacabka ahaa waxaana dadka loo sheegay qofkii farsamo ku boodi kara inuu boodo inkastoo dhismayaasha ay dheer yihiin haddana waa adag tahay hoos ayaana miinooyin uga xiran yihiin dadka marka waxaa la yidhi meel gadaal isku buurta ama gala si aad iskaga ilaalisaan waxyeelada miinada markay kor u boodo waxaa hadda loo wacay kooxda miina baarka waxay isku dayayaan inay miinooyindan fashiliyaan laakiin xaaladihii ugu darnaa waay sababtoo guryo la degan yahay ayaa miinooyin lagu xirxiray subxaanallah waa xaalad qalquusa miinada koowaad ayay marka hal mar taabteen waxaa wada qarxay ilaa iyo 7 kale oo aaga ay ku miineeyeen qaarkood jidadka ayay dhigeen kadib marka waxaa loo maleeyay hoobiyayaal dhawaaqa xoogiis laamaha amniga markay maageen ku carara mid kale ayaa loo taabtay meeshaas ayaa shaki ka imaaday waxaana la sheegay in had darbiyada ay ku wada xiran yihiin ilaa iyo 3 guri oo dabaqyo ka kooban waaweyn ah oo apartments u eg in halkaasi ay xaalad xuna ay ka dhalan karto haddii aan sida ugu dhaqsiya badan kooxda miinabaarka u soo fujinin sababtoo ah ragga waxaan sameynaa ayaa la aaminsan yahay inay kor ka hagayaan ama ay wataan remote controlka ah taas u sahlaysa inay hore ka taabtaan marka hadda waa laga kala cararay dadkiina dhismayaasha ayay saaran yihiin waana guryaha mataanaha ee ku aadan masaajidka afar minaaradlaha ah ee garas baaley waaxda koowaad ee galmudug wixii warkan ka soo kor idinka ayaa horay assalaamu calaykum كيف كانوا كل راس صباحي وربا مكايست مياه وربا كما هايست يا بحقاري هيا